السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وناكسن داوديال meel kasta oo iga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale oo xiiso badan. Muuqaalka maanta waxa uu noqonayaa money lifestyle. Inta badan casharada aan qaadano ama aan ka hadla waxa weeyaan qofka noloshiisa sida lagu dhiso lifestyle-ka qofka. Sidoo kale lacagta waxay qayb ka tahay lifestyle-ka qofka sida uu ku sixi karo. Sad ogtiin dhaqaalaha ama lacagta waxa weeyaan adeeg inoo fuliya arrimaheena. maadaama marka ay tahay adeeg arrimahan inoo fuliyo waxay qayb ka noqonaysaa lifestyle-ka dhaqaalaha qayb ay ka noqonaysaa. haddii qofka dhalinyarada ah ama qofka maanta lacag la'aanta ama qarash aan haysanin ama meel wax ka bilaabo aan haysanin business aan haysanin uusan helin waxa la yiraahdo guidance oo ah la talin meesha wax ka bilaabi karo uusan helin qofka badanaa wuu ku wareeraa sidoo lacag ku sameeyo sidoo dhaqaale ku sameeyo uu doonayaa qof walba hami iyo himilo ayuu leeyahay oo maalmaha kamid inuu lacag sameeyo dhaqaale sameeyo noloshiisa ku filnaado laakiin haddii aadan haysanin the guidance talooyin kugu hago dariiqa aad wax ka bilaabi kartid ee kugu haboon inta badan waqti badan ay kugu qaadataa in aad lacag sameyso. tusaale badan soo qaato aniga markaan soo aqliyay aan soo weynaaday wax aan bartay mindset-ki ugu horeeyay la isii wuxuu ahaa inaan shaqo tago oo aan shaqeeyo shaqaale aan noqdo la iqoro aan shaqo dalbado shaqadaas aan ka shaqeeyo kadibna aan lacag helo mudaan ku shaqeey runtii inaan shaqaale ahaa shaqooyin kala duwan ka soo shaqeeyay hadii aan noqon lahayd shaqadii iigu horeysay aan bilaabo waxay ahayd inaan noqdo secretary inaan noqdo xogeen aan xafiis ka noqdo waxaan ka soo shaqeeyay media inaan qeybaha kala duwan media ka soo shaqeeyo ama raadiyaha noqoto ama TV ha noqoto ama website ha noqoto aan la soo shaqeeyo dhamaantood marka shaqooyinkaasi sidoo kale waxaan la soo shaqeeyay inaan macallin noqdo oo iskuul aan macallin ka noqdo shaqooyinkaasi dhamaantood waxay ahaayeen shaqo aan lacag ku sameynayo waxa la yiraahdo in waqtigeyga aan iibsado kadibna mushahar la siiyo maanta waxa laga yaabaa in badan inay sidaa ku shaqeynayso oo aysan ku qanacsaneen marka waxaan rabaa maanta waxaan idin siin doonaa talooyin ama tusaalooyin yaryar oo aad kaga bixi kartid haddii caqabadahaasi ay ku haystaan. sawirkan hadda aragtaan halkaan soo qaaday halka kore lacag ayaa taal laakiin lacagta waxa ka sokeeyo wado adag oo la yiraahdo zigzag line kaani qof walba ma fahmi karo kama gudbi karo si uu u gaaro xornimo dhaqaale waqti ay ku qaadanaysaa qofka halka taagan waa lacag la'aan dhaqaale ma haysto wuxuu rabaa inuu lacagtaas hanto ama dhaqaale helo laakiin meesha uu mari lahaa dariiqi ma helay waxa la yiraahdaa marka the money GPS ka waxa laga wadaa waxa ku hagayo tusaalo kale aniga waxaan deganahay xaafadayda waxay leedahay address ama post address ayaan leeyahay qofkii rabo inuu gurigeyga imaado markuu ka soo dega airportka Gardermoen Airport ee Oslo qofka wuxuu soo qaadanayaa taxi wuxuu haystaa addresskeyga taxiga ama gaariga ayuu gelinayaa toos ayuu u keenayaa gurigeyga irdiis kaas waxa la yiraahdaa marka GPS marka aad haysatid ama aad qaadanaysid waxa laga rabaa koow inaad haysatid location-ka aad joogtid laba inaad haysatid location-ka aad u socotid saddex inaad haysatid qalabkii location-kaas ku hagi lahaa oo ah baabuurkii ama mobilkii sidoo kale markaad dhaqaale sameynaysid waxaad u baahan tahay inaad GPS-kaasi haysatid ee ku hago haddii GPS-ka aad haysan inta badan waad isku dhaxyaacaysaa maalin kasta wax cusub aad sameynaysaa wax cusub aad bilaabaysaa qorshe kale aad bilaabaysaa haddana weli dhaqaale la'aan ay dhahanaysaa laakiin markaad heshid GPS-kaasi waxa kuu fududaanayo juhdi meel aad geliso inuu dhaqaale badan kaaga soo baxo soo maanta waxaan idin siin doonaa marka GPS-kan lifestyle-ka ahaa GPS oo money lifestyle ah ayaad heli doontaan insha Allah sidii aad uga faa'iideysan lahaydeen buugan waxaa la yiraahdaa The Rich Dad and Poor Dad waxaa qoray Robert Kiyosaki ninkaas ayaa qoray buugan waxaa la yiraahdaa waa buugga ugu fudud marka ay noqoto guidance-ka ama GPS-ka dhaqaalaha marka buugan qofku uu akhriyo haddii uu fahmo oo uu ku dhaqaaqa wuxuu ka fahmay waxay u fududahay oo ku siinaya GPS-ka dhaqaalaad ku sameyn kartid taasoo ah lacagta sideedaba qofka waxay ku soo gashaa afartan qaab oo ah employee ina shaqaale tahay cid u shaqaysid mushahar qaadatid S oo ah self employee ama ina tahay qof adiga dukaan yar u furan yahay self employee ah ama shaqo yar isaga u leeyahay haysto labada waxa la yiraahdaa labada bidax ama dhinaca bidax ee lacagta ay ku timaado ama qofku lacag ku sameeyo waxa haray dhinaca midig waxa ugu horeysa waxa la yiraahdo I oo ah investor ina tahay maal gashade
B oo ah business owner inaad tahay qof ganacsiyo waaweyn iska leh. tusaale kale investorka maxaa tahay? Investor waxa waaye qofka share ku darsada kambaniyasha kale, membership ah oo xubinka ah kambaniyasha kale. Kambaniyashaasi waxay soo saari karaan product, waxay soo saari karaan barnaamijyo kala duwan, service waxyaalo badan. Laakiin adiga kambaniga ma lihid, waxa tahay waad ku shaqaysataa, qayb baad ka tahay. So waxaad noqonaysaa investor ayaad noqonaysaa. ama membership oo ku gashay ama waxaad ku gashay maxay ahayd share kambanigaasi qayb ayaad ka tahay, dhaqaaleed ku sameynaysaa. adiga wax alaabka ma saarno, uma baahnid dukaan kireysid, alaabo inaad iibiso, waxaas uma baahnid. laakiin serviceka kambanigaas ayaad isticmaalaysaa. business owner waxa la yiraahdaa inaad kambani weyn adiga aad leedahay, aad CEO ka tahay ee adiga aad leedahay inaad sameysid. okay, sida inaad kambaniga Amazon waxa CEO ka ah Jeff Bezos la yiraahdo. sidaas oo kale inaad kambani adiga sameysid oo aad fikirtid oo waqti badan ay kugu qaadato, qarash badan ay kaaga baahanto. waxaan rabaa marka ujeedka GPS-ka waxa weeyaan maanta bug iyo qalin qaado 4 qayb sidee bay lacagta kugu soo gashaa. 4 qayb waxa wehelisa qayb saddexaad oo ah in cid kale aad ku tiirsan tahay ama lagu soo biilo ee dad aad ku tiirsan tahay, ama dhaqaalaha qof kale uu ku soo yaado guriga aad joogto biilkaada la bixi, taasoo inta ba ka sii liidato oo loo yaqaan inuu qofkii ku nool yahay nolol qof kale uu ku tiirsan yahay. ogowna markasta aad qof ku tiirsan tahay waa markaad ugu liidatid. haddii maanta aad biilal qaadato dad aad wax ka sugtid, qofkaasi xilli kasta ayuu dhiman karaa aad ku tiirsan tahay, xilli kasta ayuu weyn karaa dhaqaalaha maanta uu ku siinay. waxaa la rabaa marka inaad fikirto tiraahdid maanta laga bilaabo aniga waa inaan noqdaa labadan midig, investor inaan noqdo oo kambaniyaal kale ku shaqeysto, service dad leeyahay ku shaqeysto, ama inaan business owner noqdo. waa labada meesha ugu fiican ee dhaqaalaha lagu sameeyo. waxaa jira daraasaad badan oo la sameeyay, waxaa leeyahay dhaqaalaha soo gala wadamada, dhaqaalaha soo gala caalamka. daraasaadka waxay leedahay dhaqaalaha soo gala caalamka marka la xisaabiyo 95% wuxuu ka yimaadaa I iyo B oo ah dhaqaalaha ugu badan kambaniyasha oo ka yimaada ama shirkadaha waaweyn oo ka yimaada. dhaqaalaha ugu yar ee 5% ahna wuxuu ka soo xaroodaa inaad business yar haysatid, ganacsi yar oo kooban aad haysatid, ama farmasho aad leedahay, ama taksiila aad tahay, taksi aad leedahay, ama inaad tahay employee qof mushahar qaadanay. 5% bis ka soo xaroota halkan, halka 95% ay ka soo xaroota dhinaca midig. dadka ku shaqeysto ama shaqooyinkan ku shaqeysto 95% labadan dhinac ay ku shaqeystaan oo ah inay yihiin employee ama inay yihiin in maxay ahayd small business yar ay haystaan oo haddii iyaga ay ka tagaan ama ay ka xanuunsadaan oo hawada ka baxay. u fiirso, waa dadka ugu badan halkan ay ka shaqeeyaan. dadka ugu yar 5% waxay ka shaqeeyaan labadan dhinac, dhinacan oo ah I iyo B. laakiin dhaqaalaha ugu badan ka yimaado dadka ugu yarna way ku jiraan. macnaha dadka oo dhan ma galaan dhinacan, way ku yar yihiin dadka inay investor noqdaan ama inay noqdaan business owner. laakiin dadka waxay noqdaan employee 95% ama self employee. haddaba marka haddii aad employee tahay ama self employee aad tahay, maanta laga bilaabo mana GPS-ka aan ku siinayo waxa weeyaan adigoo shaqadaada ku jiro sidee baad shaqo kale part time u samaysan kartaa oo investor ah, ama company adiga aad leedahay aad u aasi kartaa si aad u noqotid business owner. adigoo halkan ka shaqaysanay ayaad switch sameyn kartaa, flip side ama switch side aad sameyn kartaa, dhinaca kale ka faa'iideysan kartaa. sidee baad ku sameyn kartaa? tusaale aan ku siinayaa, haddii aad qurbaha degan tahay qasab waxayna shaqaysid. inta badan dadka qurbaha jooga ama Yurub ha joogaan ama Mareykan ha joogaan, wadamada dadku way shaqaystaan in yar mooyaane ee qaadato. haddii aad shaqaysatid maanta subax kasto waad kala hadaa 8 saacadood shaqaysaa. haddii gelin kor aad shaqaysid, haddii gelin dambe aad shaqaysid waa shiftigaada. 8 saacadood markay kugu soo dhamaato en waxaad haysataa oo 8 saacadood markay kugu soo dhamaato haysataa 16 saacadood. 16 saacadood ee 24 saac kaaga hartay inta hurdadaada iyo qoyskaada aad u kala qaybisid. haddii waqtigaada aad qorsheyso ee aad qiimeysid, adiga oo shaqadaada 8 saac wato ayaad dhinaca kale waxaad u wareegi kartaa in part time aad shaqo ku raadisid ah investor inaad noqotid ama aad business owner noqotid. laakiin waxay kaaga baahan tahay dadaal iyo juhdi iyo waqti iyo adkaysi ayay kaaga baahan tahay. 2018 ayay ahayd inaan go'aansaday, markii aan go'aansaday in aan ka wareega dhinacan employee-ga ah, haddana aan ku shaqeysto anigoo ku shaqeysanay ama investor ha noqoto ama business owner ha noqoto. business owner maan awoodin, waxaan ahay qof shaqeyso oo shaqaale ah waxna barato.
waxaan xooga saaray markaa inaan dhinaca investorka galo waxaan kusoo biiray qayb ka noqday kambaniyaal aad u badan ilaa 9 kambani ee kala duwan ayaan waxaan kasoo noqday investor oo dhaqaalo ku darsaday oo ay ugu badneed dhaqaalaha ugu badan aan gelinayay maxay ahayd kambaniyaasha suuqan la yiraahdo cryptocurrency waa suuqa ugu badan ee lacagta ugu badan dhaqaalaha ugu badan aan ka sameeyay markay noqoto qaybta maalgashiga ama anigoo service isticmaalay aan ka faa'iideysto waa suuqa ilaa haddana aan isleeyahay wuxuu noqday ama uu ii noqday qayb weyn u ka qaatay dhaqaalaha noloshayda aan ku bedelay haddaba markaa adigana sidoo kale waxaad sameyn kartaa adigoo 8 saacadood shaqeynay inaad ama shirkadahan sida cryptocurrency oo kale lacag ku darsatid aad si yar u baratid xirfado inaad baratid oo kale aad ku sameyn kartid online business inaad sameyn kartid kambaniyaal inaad ku soo biirtid iyagana aad wax ka baratid xirfadna aad ka sameysatid waqti badan ay kugu qaadanaysaa inaad soo wareegsatid laakiin isku day hadda maanta meeshaad joogtay inaadan sii joogin 4 sano ama 5 sano soo socoto inaadan wali sii ahaanin employee oo aad dhinaca kale switch u sameysid investor aad noqotid 5 sano had kadib ama 6 sano had kadib in noloshaada ay noqoto mid adiga aad u madax banaan tahay investor aad tahay ama business owner business adiga aad leedahay aad sameysatid aniga ilaa hadda business aan leeyahay ma sameysanin maxaa yeelay dhinaca investorka xooga saarayay laakiin qorshahayga ugu badan hadda waxa way sanadada soo socda inaan business aniga aan leeyahay aan soo saaro laakiin hadda investor aan ahay qaybtan investorkan xooga saaray aan ku jira oo ka shaqeystaa qof kasto ay soo galayna waan ogahay ma sahlana waqti badan ay kugu qaadanaysaa noloshaada inaad qorsheysid oo xirfadaha aad baratid ayaa muhiim ah oo maanta laga bilaabo aad iska dajisid mindset-ka ah inaad lacag badan shaqeysid oo dad aad u shaqeysid oo saacadaada ama saacadahaada lacag lagaaga bedesho waxa la yiraahdaa marka qaybtan lacagta ayaad u shaqeysaa laakiin qaybtan oo IEB ah waxay kaga duwan tahay lacagta ay adiga ku shaqeynayso marka waxa isweydiisaa adiga ma waxa doonaysaa 5 sano ilaa 4 sano soo socoto inaad lacag u shaqeysid mise inaad lacagta ku shaqeyso haddii jawaabtaada ay tahay inay lacagta ii shaqeyso isku day inaad maanta laga bilaabo qorshahaada ku darsatid inaad labadan noqotid walibana waxaan kugula talinayaa investor inaad ku bilowdo waa qofka marka uu dhaqaale badan haysanin waxa u fiican qaybtan investorka inuu barto ama service ha noqoto ama product ha noqoto dhinaca hadba adiga aad ku fiican tahay inta aad raadsato qof coach ah ee ku hago xooga saar xirfado dhinaca ku saabsan maalgashiga raadso qayb ka noqo waxa jira suuqyo aad u fara badan ee maanta aad bilaabi kartid oo suuqaasi aan magacaabe ee crypto u kamid yahay suuqa stock market kala yiraahdo u kamid yahay suuqada shareerka sida stock market ko kala shareerka laga gato u kamid yahay bangiye ayaa jiro inkastoo bangiyada ama qaybtan bangiyada la yiraahdo suuqa bangiyada la yiraahdo dhaqaalaha ka soo gala uu yar yahay ma badna dhaqaalahooda laakiin haddana iyaga naftirkooda waxay leeyihiin share ay leeyihiin bishii December 2023 waxaan tagay wadanka Kenya aan muddo bil ah soo joogay waxyaalihii aan dhinaca ganacsiga aadka u fiirinay indhahan ku hay waxay ka mid tahay dhinacan maalgashiga waxaan arkay ama la kulmay bangi islaamig ah oo Kenya ka jiro bangigaasi oo ku shaqeeya suuqyada waaweyn sida stock market-ka ayuu ku shaqeeyaa wuxuu ku shaqeeyaa suuqan la yiraahdo oil market-ka saliidda iyo shidaalka ayuu ku shaqeeyaa suuqyo badan ayuu ku jira oo uu trade ka sameeyaa bangigaasi waxa uu qabtaa share ayuu leeyahay oo islaami kali ah ama diiniyan xalaal ah ayuu leeyahay badanaa bangiyada marka laga hadlayo qofka markuu bangiyada lacag ku darsado waxay ka shaqeeyaan inta badan wax ay rabaan waxay doonaan waxa imaata marka inuu bangigaasi ka soo gasho lacag laba lacag dhinaca lacag riba ah ee bangigaasi maadaama aad sanad ku xisaabtamaysan sheerkiina lacag extra ah oo dul saar ah ayaa lacagtaada ku fuulayso labo suuqaasi ay ku trade gareynayaan xalaal iyo xaaraan ma kala jecel wax kasta way qabanayaan laakiin waxa la aad ugu riyaaqa bangigaasi wuxuu ahaa in ay leeyihiin islaami kali suuqaasi markay galayaan trade-ka ay sameeyaan wax kasta oo haba yaraatay shaki ku jira inay banaanka ka istaagaan kuma trade gareeyaan soo marka 100% sida ay ii sheegeen ama marka aan akhriyay inta badan kulumadii aan la yeeshtay aan ka arkay waxooda waa xalaal basic oo ah investor ah laakiin yaa ka faa'iideysan karo dadka lacagaha badan haysta ka faa'iideysan karo dadkeena bilowga ah $1,000 iyo $500 iyo haysto way ku adag tahay lacag badan kama sameyn karaan laakiin qofka markuu uu rabo inuu maalgashi sameeyo investor uu noqdo lacag fiican uu haysto haduu gasto dhaqaale fiican ayuu qofka ka sameyn karaa isaga oo aan waxba qabano kali ah share bis ah ayuu sameyn karaa stock market ka naftirkiisa waxa jira kambaniyaal waxyaalahan
electronic استعماله ليه هذا tech company أما technology company أو أي عد هاي واحد أي قبنا يعني كل أي تهاي service كاس هو ده أي بحنا يعني أو أن product إيو وحالا ربنا يسوق جلس أنت بدنا نكون شقينين صبرك هدي أدور في رستان سوق ده صوت نواد كفاية دي سنكرتان سوق كريبتو نفتر كيسة وحليه هاي العجاء لقادن كري العجاء لقادن كرو هدي أدشان عد إذن كوج كريسو أما أد توبر في عقادتان وكفاية دي سنكرتان دعوة ده أديك دعوانا talada aan ku siinayo waxay tahay number 1 maanta hadii aad tahay qof cid kale ku tiirsan ee dad kale ay caawiyaan ku talagal inaad noqotid qof self depending ah oo ah qof maxay isku filan noqo oo financial freedom time freedom gaari karo 5 sano soo socota Ilaahay nafta u deesto ku talagal inaad noqotid labo hadii aad tahay shaqaalo employee aad tahay isku day adoo shaqadaada wato inaad part time ka samaysid dhinaca kale waqti kamid aad gelisid oo aad uga faa'iideysatid si aad uga soo wareegtid inaad adiga lacagta u shaqaysid oo lacagta ay adiga kuugu shaqayso hadii self employee aad tahay ama taksiira aad wadatid ama aad maxay ahayd business yar oo ku furan yahay dukaan ama farmasho ku furan yahay marka adiga aad xirto u ka xirmay adiga oo asaga wato isku day inaad u wareegtid dhinaca kale oo aad investor noqotid ee aad maalgashi ama business adiga aad leedahay aad samaysatid oo ah business owner si aad u soo wareegtid xaga mar walba ku xisaabtan hadda waxa tahay lacagta ayaad u shaqaysaa laakiin sanadaha soo socda Ilaahay nafta ku deeyna lacagta adiga ku shaqayso waa sida ugu fiican ama mindset ugu fiican ama fikirka ugu fiican dhaqaalaha qofka uu ku guuleysan karo hadii aad tahay qof dhalinyaro ah ee cusub ee hadda aan waxba haynin bilow ah waxaan kugula talin lahaa inaad xoog saartid oo ah investor in raadisid meel aad maal gashan kartid xirfada aad baratid service-ahan kula shaqeyn kartid ama company-yaal aad la shaqeyn kartid si hoos ah ina uga bilowdid oo aad la kobacdid markaa sanadaha soo socda si aad u gaartid xornimo waqti xornimo dhaqaalo laakiin hadda waxaad u baahan tahay inaad hoos ka bilowdid xirfada aad baratid service-yadaasi iyo company-yaashaasi aad la shaqeysid oo iyaga adigoo baranay aad haddana qayb ka noqotid oo membership waxa la dhahaa aad ku gashid ayaan kugula talin lahaa صداوديال أدود ما سنتين وأنا سلامية هدي أتكلم مقال كان مركو جوه الرئيس سودو أد عصبت هاي ولبا هدي أد عصبت هاي مركو جوه الرئيس صوب وقت الجنال كيجا هاللابن إن سبسكرايب لايك سميسيد سدو كله هدي أد سدو كله فيسبوك جلس عتت هاي لابن إن تفولو كريسيد أد بن سلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك